بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة رمضان iyo warkeedu kitaabka iyo sunnadana waa ku badan yahay duruusta iyo waxa laga faa'iidayo casrigan dambana dee cilmigaaba u janjeedha xalay bise habeen hore waxaan dhegaysanayey nobel pricekii 2016kii nin jabani soo qaatay oo soonka ku qaatay nobel price aclى aljaa'isa fi اlcaalam ay bixiyaan sayniska oo nobel priceka lagu siiyey markuu jidhku soomo maxaa dhaca ilaa xad uu leeyahay qofkii raba inuu caafimaadkiisa si caadiya u fiicnaado wuxuu u baahan yahay toddobaadkii inuu 2 casho soomo dee walba inagu sunnadaynu ku haynay toddobaadkii in 2 casho la soomo isniin iyo khamiis axad alculamaa ka warramaya wuxuu lahaa waxaan egay buu yihi 3 sannadood ee ugu dambeeyey maraakista caalamiga buxuusta laga qoray soomka 900 oo baxhiyo cilmiya laga qoray waa 3 sannadood ugu dambeeyey maraakis alcilmi alcaalamiya waxyaabaha ku saabsan soomka 900 oo baxhi ayaa laga qoray idan maanta kuma talagelin ramadaan taas iyo fawaa'ideeda iyo waxaynan ka warramo waxaa iskaga talagalay waraa ogsoonaydeen inaan idinku adkeeyo alcashri alawaakhir 10ka dambe nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam muxuu qaban jiray iyo see loo cibaadaystaa waa war culammadu in badan ay idinkala hadleen laakiin min baabi ta'kiid iyo in la isugu celceliyo si ay qalbiga u degto ama ay camal u noqoto ama ay dhaqankeenna uga muuqato ayuun baan ku talagalay inaan idin idhaahdo intii culimmadu sheegaysa inaan ana idinku sii adkeeyo 10kan cashee ramadaanta ugu dambeeya waxaynu ognahay bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay 10ka habeene ugu dambeeyaana inay ramadaan ugu sii fadli badan yihiin yani culimmadu waxay idhaahdaan sanadkao dhan marka la ysku daro haddii 10 la qiimeeyo maalmaha markay tahay bay culammadu yidhaahdaan 10ka maalmood ee dilxijo baa ugu fadli badan habeenada markay tahayna bay yidhaahdaan 10ka habeen ee ramadaan baa ugu fadli badan marka 10kan cashe ee ramadaan ugu dambeeya habeenadeeda ayaa waxay yihiin 10ka habeen ee sanadkao dhan marka la ysku daro ugu fadli badan haddana waxaa ku sii jira habeenka dee sanadkao dhan marka la ysku daro isaguna ugu fadli badan idan waa bishii u fadli badnayd iyo 10kii habeen ee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadkao dhan ugu fadli badnaa oo 10kan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi الsalaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadkao dhan yani 10kani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadkao dhan intiisa kale si awgeed bay imaamu muslim xadiidka soo warinayo lmuuminiin caaisha radia allahu canha waxay leedahay كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam 10ka habeen ee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan idan 10kan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso 10ka habeen cibaadadooda weliba
caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiidka صaxiixeynku warinayaan kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam إida dakhala اlcashru shadda mi'zarah وaأxyaa laylah وأyqada أhlah imaamu muslimna riwaayaddiisu waxay ziyaadinaysaa wajadda washadda mi'zarah caaisha waxay leedahay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam tobankan habeendan hadday u soo galaan guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray halkay soomaalidu tidhaahdo guntiguu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay haddaba isagoo nebi moxamed marka horeba cibaado badnaa calayhi الsalaaةu wasalaam oo habeenadii siduu u tukanayo gumadu berari jirtay oo ay caaisha ku lahayd ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii hore iyo kii dambeba waa la dhaafaye maad naftaada sidan ka daysid maad nasatid oo kale ow lahaa haddii ilaahay dembigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa iyadoo dhaqankiisu uu kaa ahaa ayaa haddana tobankan markay soo gaadho arrinku wuu ka gedisanaa habeenkiisa wuu noolayn jiray baa la yidhi caaisha ayaa waxay leedahay xadiidka nisaa-i warinayo laa aclamu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam qara'a alqur'aana kulahu fi layla walaa qaama laylaة xataa asbax walaa saama shahra ramadaana kaamila walaa saama shahra kaamila gayra ramadaan ma ogi bay iyadu tidhi nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam oo habeen siduu u waday ku soo wada jeeday cibaado ama qur-aanka habeen qudha dhameeyey ama bil aan bisha ramadaan ahayn wada soomay garan maayo bay leedahay marka axya leyla kula maxaa looga jeedaa riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen inu habeenka o dhan noolayn jiray laakiin culimmadu waxay leeyihiin gaalibu leyl habeenka inta ugu badan leh ayuu habeenada noolayn jiray horta in habeenkii la cibaadaystaa iyadu de waa calaamadaha nebiyada iyo dadka saalixiinta ah ilaahay muxuu qur-aan ku tilmaamaya tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca wamima razaqnaahum yunfiquun dhinacooda dhulka ka dheeraada baa ilaahay leeyahy iyagoo rabbigood baryaya u cibaadaysanaya oo cadaabkiisana ka cabsanaya iyo ciqaabtiisa naxariistiisa iyo jannadiisana hunguri ka hayo ayaa dhinacooda dhulka ka dheeraadaa baa ilaahay leeyahy waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dadka saalixiinta ee jannada gala ina almuttaqiina fii jannaati wacuyuun qoladaa maxuu yahay calaamaadka lagu yaqaanaa inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin baa la yidhi waxay ahaan jireen calaamaadka lagu yaqaanay waa kan adduunka markay joogeen dad ixsaan sameeya bay ahaayeen kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yar bay seexan jireen wabilasxaari hum yastakfiruun waqti suxuurka marka la gaadhana istikfaarta bay bilaabi jireen wa fii amwaalihim xaqu liلsaa'ili wاlmaxruum hantidoodana xuquuq bay ku lahaayeen go-anba kuwa wax weydiista iyo kuwa maxay wax mahaysatada ahiba idan asliyan ayuu habeenkii in la tukadaa waa dhaqanka nebiyada waa dhaqanka saalixiinta waa dhaqankii saxaabadii ilaahay saxaabada markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaaء calى اlkufaari ruxamaaء baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahar الsujuud salaad badni baa ilaahay ku ammaanay salaad badni ayaa lagu ammaanay iyo muslimiinta inay u naxariistaan gaalkana iska dhiciyaan waa calaamadda lagu yaqaano dadka raba maqaami اlأnbiyaaءi wالshuhadaaءi wالصaalixiin inay gaadhaan wiilkii yaraa ee nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam u shaqeeyey ee uu nebigu isyidhi u abaalgud nebigu calayh الsalaaةu wasalaam cid kastoo wax u qabatay wuu u abaalgudi jiray abaallaawo ma ahayn
dabeetana wiilkii buu u yeedho wuxuu ku yidhi war wax weydiiso salni wax weydiiso aan wax ku siiyey wiilkii yaraa wuu soo fakeray dadkan hamadoodu siday u sarraysay bay tilmaamaysaa iyo waxay raadcaynayaan wuxuu ahaa waa nin dhallinyaro ah oo nebi maxamed u adeegaya laakiin hamigiisu adduunkan wuu ka weyn yahay adduunkan dhammaantii kuma filla hamigiisu waxa weeyaan janno jannadana xagga hoose ma rabo wuxuu rabaa janno meelo sare nebiga meeshuu galaya iyo agagaarkeeda inuu joogo dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula ahdo adduunka waa kana waa kugula saaxiib oo kula joogaaye aakhirana jannada macaaga inaan noqdaa baan doonaya ninka hungurigiisu halkaa joogo camalka la yidhi waad ku gaadhaysaa waa maxay nebigu wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxaad iigu gargaartaa haddaba haddaad kaa raadcaynayso adiguna sujuudda badi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuuddaadu salaadkaagu ha bato idan axya leyla marka la yidhaahdo fii ramadaan hadduu markii horeba nebiga sifadiisu caynkan ahayd ou salaada saa u tukan jiray ramadaan markay timaaddo ee weliba lay sii timaaddo tobanka dambe waxaa la yidhi tobanka kan axya leyla habeenkii buu noolayn jiray qaabku u noolayn jiray isweydiinle marka la yidhaahdo awalba waa noolayn jiraye noolayntan gaarkee tobankan lasii sheegaya sifadeedu qaabkuu noqonaya markaa awalan fi shariica salaatu leylka in xagga hore laga tukadaa way bannaantay oo qofku intaanu seexanba inuu iska tukado maca witirkiisa waxaa bannaan saqda dhexe inuu soo kaco tukado waxaa bannaan salaada subax ka hor inuu kaco oo tukado idan awalka iyo wasadka iyo aakhirka intuba waa bannaantay waxaana la yidhahda nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad raadacayso habeenkii wakti kasta wuxuumaad arkay isagoo taagan haddaad doontana wakti kasta isagoo hurdaad arkay yacni waa isbedbedel intaba uu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu waxay idhaahdaan qofka muqiimka ah ee mustatiica ah qofka degan ee awooda waxaa u fadli badan xagga dambe ayaa u fadli badan wixii nusleylka ka dambeeya ayaa u fadli badan bay yidhaahdaan oo waatii cumar laga sheegaya aharka ah walatii yanaamuuna canha afdalu dee ilaahayna qur-aanka wاlmustakfiriina bilasxaar wabilasxaari hum yastakfiruun baa ilaahay tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam siduu u tukan jiray caaisha saa xadiidkii aynu soo sheegnay ku tilmaamtay waxay leedahay anigu maana arag ramadaan iyo keyrkee toona isagoo maxay 11 ragcadood ka badiyey laakiin 11ka ragcadood ee nebigu cayn ka ahaayeen innaga haddaad tidhaahdo qof 11 ragcadood baa la tukadaa dee 10 daqiiqo kaga soo baxaya so-aalkaa maaha qoladeenna fogeysa ee tidhaahda waynu tahajudaynaa waa dheeraynaynaa dee hal jisu maynu akrinaa so-aalkaa maaha caaisha waxay leedahay abi salama ibnu cabdiraxmaan ayaa wuxuu weydiiyey caaisha kayfa kaanat salaatu rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama fii ramadaan nebiga salaadiisu ramadaantii siday ahaan jirtay caaisha waxay ku tidhi ma kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama liyaziida fii ramadaana walaa fii gayrihi calى 11 ragca ramadaan iyo keyrkii toona 11 kamuu badin jirin aynu sheegi riwaayaad kaloo sheegaya 13 iyo wax la mid ah 11 kamay badin jirin bay xadiidkan caaisha ku tilmaamtay laakiin siduu u tukan jiraa isweydiinta leh waxay caaisha leedahay yusalii 4 laa tas'al can xusnihina wa tuulihina 4 buu tukan jiray iyaga hay weydiinin bay tidhi quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin oo waxaa la yidhaha nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxay caaisha leedahay xadiidka horta dhammeeyo uma yusalii 4 4 buu haddana tukan jiray laa tas'al can xusnihina wa tuulihina uma yusalii 3 bay tidhi dabeetana 3 buu tukan jiray xadiidku intaa uu ka rooyey mukhtasar shamaa'il
mukhtasir shamaa'il buu imaam ilalbani ku saxiixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bal qirada waxaa kaaga filan xadiidkii xudayfe iyo ibnu mascuud iyo axaadiista ay warinayeen habeen inuu salaad isu taagay dabeetana ay ku xidheen saxaabi baa ku xidhay dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi de kolley 100 meelahaas markuu gaadho ayuu dhammayn doonaa albaqraba waa dhameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam albaqri waa 2 jis iyo dheeraad 286 aayadood waa dhameeyey kadib aan sidhi buu yidhi hadduu rukuuci markaasuu bilaabay buu yidhi suuratu nisaa haddana markaasuu dhameeyey markaasuu dib u soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana aali cimraan bilaabay markaasuu dhameeyey waa ragcad maaha 11 kama warramayno waa ragcad buu akhriyayaa maxay 5 jis iyo dheeraad caaisha waxay leedahay kaana yasjudu sajda qadra maa yaqra' axadukum 50 aaya sujuudda nebi maxamed waxay ahaan jirtay bay leedahay inta midkiin 50 aayadood ka akhrinayo hadda jiskuba waa ilaa 140 aayadood meelaha maalan jiska albaqri 150 iyo wax ka yar dadminis waxa weeyaan thuluth jus inta laga akhrinayo 50 aayadood inta la akhriyi karo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sujuuddiisu ay ahayd sideedaba salafu saalix saxaabadii iyo nebiga iyo dadka wanaagsanaa wardigooda iyo qur-aankooda iyo salaad akhriskooda way isku dari jireen in badan oo ka midi wax lagu wardiyo maxaa u badan oo u fiican subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar soo maaha salaadana acmaasha la qabto saddexda tan iyo qur-aan baa u fiican wax lagu wardiyo soocaykaa maaha salaaduna intaasumay ka koobantay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanta o dhan waad wadaysaa soo maaha dee rukuuc iyo sujuud iyo ictidaalla maxaad samaysaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim samic allahu liman xamid intaasumaad wadaa tasbiixaat iyo taxmiid iyo takbiir ayaad salaada wadaa iyo qur-aan la akhriyo waa wardigu ugu fiicnaa oo ficil salaadeedna ah wardigaasoo marna lala rukuucayo marna lala sujuudayo weeyaan salaadu sida awgeed nebiga calayhi الsalaatu wasalaam 7 wuu tukaday oo 9 buu tukaday oo 11 buu tukaday oo 13 buu tukaday oo ka yar buu tukaday laakiin lama soo naqlin 13 wax ka badan oo isagu tukaday laakiin dee salaadihiisu kuwaasay hayeen haddaba culimmadu waxay leeyihiin sheekh mustafa alcadawi wuxuu soo naqlinaya waxay culimmadu yidhaahdeen buu yidhi sifadu hadday nuqsaan inaga gashay cadadka waa lagu kabi karaa u fiirso ereyga haddii adigu 11kaagu aanay la mid nahayn ama la nooc noqon haddaad horta kuwii nebiga u ekaysiin karto cadadan wa sifatan iyadaa fadli badan cadadan wa sifatan tira ahaan iyo sifa ahaanba haddaad sunnadii nebi maxamed raacda calayhi salaatu wasalaam iyadaa fadli badan culammadu waxay idhaahdeen haddaad sifadu kaa gaabato oo aad intii sujuudnaan kari weydo ama qur-aanka intii akhriyi kari weydo waxaa lagu kabi karaa bay idhahdeen ragcadahoo la badiyo oo xaggay ka keeneen waxay yidhaahdeen cibradu waa zamanka aada cibaadaysanaysee cadadka ragcadda maaha bay dhaheen u fiirso ereyga falcibratu bizamani اlqiyaam walaysat bicadadi rakcaat bay idhahdaan meesha danta la leeyahay waxa weeyaan imise aad ilaahay hortaagnayd ee maaha imise ragcadood baa tukata waxaa dhici karta qof 7 ragcadood ilaahay hortaagnaa inuu ka badan yahay 20kaa tukatayba waxaa dhici kara qof 9 ragcadood tukaday inuu ka badan yahay intuu cibaadaysanayay maxay intaad adigu tukatayba cibradu bay leeyihin waa zamanka oo maxaa daliila waxay idhahdeen waxyaabaha ku tusiya waxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay qum اleyla ya ayuha اlmuzamilu qum اleyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid calayhi waratil اlqur'aana tartiila waxaa lagu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam habeenkii istaag in yar mooyaane nuskii istaag ama wax yar ka yaree ama wax yar ku dar waratil اlqur'aana tartiila
aayadda dambe ee nasakhday aayaddan say culimmadu sheegayaan maxay sheegaysa ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثay leyli wanisfa wa ثuluث idan cibradu waxay leeyihin waa zamanka waxaa kaloo taa caddaynaya bay leeyihin xadiidkii sheegayey saxiixeynka ku yaalay ee sheegayey maxay salaada ilaahay ugu jeceliyay salaatuleilka awalan marka faralka laga yimaado dee salaad la tukado salaatuleilka u fadli badan faralka marka laga yimaado oo waa kii nebigu laha alayh الsalaatu wasalaam bacda almaktuuba waxaa ugu fadli badan le maxay salaatuleilka salaatuleyladuna way kala fadli badantahe keeba xagga alle loogu jeceliyo tii nebi daa-uud buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wa axabu الsalaati ilى اllahi salaatu daawuuda calayhi الsalaam salaad la tukadana waxaa loogu jeceliyay baa la yidhi tii nebi daa-uud uu tukan jiray nebi daa-uud muxuu tukan jiray kaana yanaamu nisfa leyl habeenka inta hore wa iska seexan jiray waataynu le xagga dambe la tukadaabaa fadli badan laakiin waa bannaantay xagga horena in la tukado saan aynu taraawiixda u tukanoo kale taraawiixdu waa salaatuleyl la qadimay un kaana yanaamu nisfa leyl habeenkii nus buu seexan jiray wayaquumu ثuluثa saddex meelood oo meella wuu taagnaan jiro wuu tukan jiray wayanaamu sudusa sudusna wuu sudusku waa lix yacni lix meelood haddaad u qaybiso habeenka lix meelood haddaad u qaybiso saddexda meelood ugu horeeya wuu seexan jiray saddexda meelood ugu horeeya waa nus markaa labada meelooda ku xigana wuu taagnaan jiray halka meele ugu dambeeyana wuu hurdi jiray tusaale haddaad tidhahda habeenku maalan haddaynu idhahna habeenku waa 9 saacadood 9kaa saacadood 4 iyo badhka hore wuu hurdayaa kow waa nuskii ثuluث buu haddana soo jeedaya 9 saacadood ثuluثkooda waa maxay waa 3 saacadood 3 saacadood buu haddana tukanayay kadib buu haddana suduska dambe waa maxay waa saacad iyo badh marka 4 saacadood iyo badhoo horuu seexday 3 saacadoodoo dambuu taagnaa saacad iyo badh dambuu seexday habeenkiisii 6 saacadoodna wuu hurday 3na wuu taagnaa weeyaan habeenkiisii 9 saacadood ahaa 6na wuu hurday 3na wuu taagnaa idan culimmadu waxay leeyihiin xadiidkan iyo aayaddan qur-aana markaynu eegno waxaynu ka fahmaynaa cibrada meesha lagu xisaabtamaya inuu zamanka iyo inaan ragcado ahayn dhalinyarada dambe fuqahada qaarkood iyagoo raacaya waxay 11 un hala tukado laakiin dee 11 bidhbidha haddaad tukato ma aha 11kii wasniga samaynayay 11kaagu 3 saacadood ama 2 saacadood miyay qaataan ilaahay qur-aanka markuu tilmaamay kuwa ilaahay isu taaga waxa la yidhaha aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima aanaa baa lagu tilmaamay yacni saacaat alleyl habeenkii saacadiisa taagan saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun walidalik bu wuxuu ka soo naqlinayaa sheekh mustafa alcadawi ibnu taymiya ama ibn alxajar alcasqalaani sheekh shaaficiyada ana الnaqصa fi sifati اlqiraaءة yusdaadu fi cadad الrakcaat bay idhaaheen qiraa'adaadu hadday koobnaato xaafid ma tihid ama waad xanuunsanaysaay oo in badan ma taagnaan kartid ama waad daciif baatay oo waad gabowday oo in badan ma taagnaan kartid jirto dadkii dhallinyaronimadoodii ku traengareeyee taagnaan jiray iyagoo gaboobay ba taagnaadaan culimada muslimiinta qaar baad arkaysaa 9 jiraa aan arkayay ramadaanta mid tukinaya taraawiixda 104 jiray ul yar buu ku taagay ul buu haystaa waxaa la ii sheegay axad alculamaa mauritania ma kici karo salaada marka la tukanaya baa la yidhi laba inan uu dhalaa garba qabta dabeetana waa la taagaa waa la sii daayaa markaa salaada intuu tukanayo o dhan caadu u wadaa markay salaadu dhammaataabuu isku dhacaya haddana yacni ilaahay baa uu xoojiyey inaanu salaaddii uu sidii u taagnaan jiray inaanu ka daciifin xataa isagoo gaboobay oo kici kari loo la kicinayo hadhow inta salaadda uu ku jiro isagaa kackacyo cidila kicin mayso markay dhammaatana wuu isku dumayaa baa la yidhi idan haddii si uun ay dhacdo tamartaadu inay keensan weydo inay qiraa'aadkaagu dheeraadaan waxay culimmada tani leeyihiin ragcadahaad badsan kartaa haba gaagaabnaata ragcaddaadii 10 daqiiqaba ha qaadatee ragcadaha maxay badi bay leeyihin
ibn cabdilbar alcallaama ibn cabdilbarina waxaa buu ka soo naqlinayaa ijmaac sheegaya masaladatan ajmaca almuslimuuna calى anahu laa xadda liaktar rakcaati fi qiyaami leyl buu ka soo naqlinaya wallahu aclam ijmaacaasiisu waa saxay soo duduub nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo salaadihiisuba dheeraayeen marka horeba salaadihiisu dheeraayeen kuwa sunnayaasha uu tukanayo aynu ka warramaynaa waayo sunnada tan qofku waa amiirun calaa nafsi cidna kuma xidhna cidna qasab ma aha dadkuna waa iskaga tegi karaan qasab ma aha laakiin isaga siisa u tukanayay idan nabigu calayh الsalaatu wasalaam waxa ugu badanee laga sheegay inuu tukaday waa 13 siday caaisha iyo ibnu cabaas iyo zayd ibnu khalid iljuhani maa xaasiluhu waxuu sheegay marka laisku dardaro say sheegayaan 13 baa laga sheegaa culamadu waxay idhahdaan 11 bay caaisha xaggaa ku sheegtay isagoo ka badiyey maana rag 13na waa la sheegay waxay tilmaamaysaa bay leeyihin in laga badiyey waxaa kaloo ay sheegayaan culamadu axaadiistii sheegaysay salaatu leyli mathna mathna nebigu markuu yihi maftuux buu ka dhigay salaada habeenkii waa laba baa loo tukanaya ee haddaad waa beriga ka cabsato inuu ku soo gaadho un saad u wado labadaada faidaa khashita الصubx faawtir biwaaxida buu nebigu yihi hal xabo kuwii tirso wuxuu nebigu leeyay layusalli axadukum nashaata faidaa fatara falyaqcud midkiin ha tukado inta uu nashiidka yahay intuu firfircoon yahay markaad daasho iska fadhiisaa lagu yihi ninkii doonay maqaamka ambiyada inuu ka daba tago acinnii calىa nafsika bikahrati sujuud buu nebigu ku yihi sujuud badni iigu kaalmee man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla ninka imaamka la tukadaa la yidhi ilaa iyo intuu ka baxayo ka dhammaynayo dadka barh baa imaamka intay bartanka ka tagaan yidhaha hadhow baan tukanaya waxa kaaga fadli badan adigoo la dhammaystaa hadhow haddaad doonayso waxaad doonayso tuko laakiin imaamka ha ka tegin la dhammayso oo hadduu witirsado maxaad yeelaysaa laa ba's la witirso hadhowna salaad bilaa witr un tuko idan ayuha alaxiba culamada badh waa sugayaan sanadada axaadiista sheegaya ubay ibnu kacab inuu 11 tukiyey iyo inuu 23 tukiyeyba waa sugayaan inkastoo sheekh alalbani isagu 23 ka daciifinayo oo 11 qura asixinayo laakiin culamo kale muxadisiina asixinaysa oo leh labaduba waa haabit idan waxaynu leenahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aslanba habeenkiisa si fiican buu u tukan jiray laakiin waxaa la yidhi ramadaanka siiba 10ka dambe waa nooleyn jiray baa la yidhi wax lagu nooleeyo waxa ugu fiican salaada waayo salaadu hadday kuwii nebiga u ekaato waxay kulansanaysaa qur-aan akhriskii tasbiixdii taxmiiddii tahliishii wixii loo baahnaayo wardiyo o dhan baa ku jira iyada wixii loo baahnaayo o dhan oo wardiya ayaa iyada ku jira wax lagu nooleeyo markaa salaatuleilkaa u fiican haddaad isku kalsoonayn oo isleeday war xagga dambe waa kaa tegi doontaa xagga hore ka noole haddaad raganimadaa isku og tahay oo intaad maalintii u seexato aad is leedahay habeenkii waad kici karaysaa habeenkii noole habeenkii intaad tukan kartaba tuko ha isku yaray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii wuxuu kaloo samayn jiray salaatuleilkaa reeraana wuu kicin jiray alaa taquumani fatusaliyaan buu ku lahaa cali iyo faatima waa tan caaisha ku tilmaamaysa wayuuqidu ahlah ahalkiisana waa toosin jiray waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamaya ahalkaaga salaada far oo ku sabra dheh idan ayuha alaxiba habeen buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam soo toosay bay umu salama leedahay isagoo argagaxsan oo leh subxaana allahi maada unzila alleylata min alkhazaa'in wmaada unzila min alfitan subxaana allahi buu nebigu leeyahy caawa maxaa khasnadaha ilaahay nimcooyin laga soo dejiyey maxaa fitan soo degay waryaa toosiye buu nebigu yihi guryaha kan kuwa ku jira waa haweenkiisa buu tilmaamaya guryihii
masaajidka ku xeeraaya sawaaxib alxujaraat yaa toosiye buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam likay yusalliyanna si ay u tukadaan waayo ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira buu nebigu yihi la arkee mid dunida maryo huwan oo asturan oo aakhiro qaawan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunka qof fiican loo yaqaano masaata loo yaqaano laakiin aakhiro marka la tago aan waxba meel oonin idan waxay leenahay wakhtiyada kaleba nebigu wuu toosin jiray haweenkiisa inay salaad tukadaan laakiin tobankan habeen si gaaruu u toosin jiray weeyaan waxay caaisha xadiidkaa ku tilmaamaysay washadda almi'zar shadda mi'zara maxaa looga jeedaa guntigu adkaysan jiray laba macnoba culammadu way saaraan inay leeyihiin waa kinaaya can الاsticdaadi lilcibaadati واlijtihaadi fiiha ziyaadaة calى اlmuctaad wamacnahu الtashmiir fi اlcibaadaat yani in la leeyahy waa kinaaya waa sarbeeb laga tilmaamayo sida uu cibaadada ugu dadaali jiray ee uga badin jiray intii caadada u ahayd oo markaa halkay soomaalidu yidhahdaan guntigu hebel dhiisha iskaga dhigay yani waa u xaydxaytay waa u faytay inuu arrinkaa qabto culamada badhna waxaabay ku fasiraan oo ay leeyihiin shadulmi'sarku waxa weeyaan mubaaxaadkii oo laga tago oo waa maxay haweenku ka dheeraan jiray weeyaan dee wuu ictikaafi jiray qofka muctakifkaana waa maxay haweenka dee looma tago walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid baa ilahay yihi haweenka ha u galmoonina idinkoo maxay masaajidda ku ictikaafsan idan tobankan inuu cibaado u xidhxidho waxa kuu tilmaamaya wax wakhtiyada kale mubaax ahaa ama cibaadaba ahaa haweenaydaada xalaasha aad ku qabto inaad u tagtaa waa nooc min alcibaada ajar baa la ysaga qoraa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin tobanka kan cibaadada ka fadli badan baa la rabaa inaad samayso tobanka kan cibaadada ka fadli badan leh sidaa awgeed buu xataa haweenka wuu ka hijroon jiray oo wuu ictikaafi jiray marka waxay tilmaamaysaa xataa waxyaabihii mubaaxaadka ahaa oo ictikaafku markaa waa maxay ictikaafku kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalam yactakif alcashra alawaakhira min ramadaan ibnu cumar xadiidka warinaya waa ku tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ictikaafi jiray tobanka ramadaan u dambeeya caaisha waa tale kaana nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xata tawafaahu اllah uma اctakafa aswaajuhu min bacdi xadiiska saxiixayn ku yaala nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ictikaafi jiray tobanka ramadaan ugu dambeeya ilaa iyo intuu ka dhimanayay bay leedahay kama tegin isaga dabadiina bay tihi haweenkiisaa ictikaafi jiray ictikaafku weedh kooban haddaynu ku tilmaamno macdaheedu waxa weeyaan qofku inuu cibaado isu xidho oo mubaaxaadkii ka yimaado intuu masaajidka yimaado inuu yidhaahdo ka bixi maayo masaajidka oo muxuu ka yimi markaa waxyaabo badan oo mubaax u ahaa haweenkiisii wuu ka yimi haddaad haweenkii ka timi maxaa kale la rabaa inaad ka tagto waxay culammadu yidhahdaan fuduuli اlkalaam wa fuduuli الطacaam wa fuduuli الnowm waxaasoo dhan waa inaad ka tagtaa bay idhahdeen waa inaad iska daysaa cunada badnideeda cunadu hadday kugu badato culayska kugu badanayo iyo hurdada iyo wax lamida yarayso hadalkana jooji hadalka waxaan wardi iyo cibaado ahayn ka bax dadka barh baa intay ictikaafaan sheeko uun bilaaba oo maad suuqaagaba iska joogta haddaad sheekeynayso haddaad sheeko u wadi lahayd qolaa internetkii iska soo daba rarta oo intuu ictikaafo ayuu internetka wadaa oo haddaad webajyadii iyo wixii gelayso maad magaaladaba u shir tagtid ila waa shirkiisii une asalku waxa weeyaan ictikaafka macnihiisuba waxa weeyaan wixii markii aad joogtay mubaaxa iska ahaa baad rabtaa inaad ka tagto oo xaggaad ku socotaa waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad tobankan habeen iyo tobankan maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantoo tukanayso maraad qur-aan akhriyayso maraad wardinayso maraad nebiga ku salliyayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu
bilbalaayiini walmalaayiin inaad wardigaagu noqdo 10 maalmood oo halkaad sheekayn lahayd ama war kale akhri war xataa culamadii muslimiintii hore ma taqaanaa culamada badh baa ramadaanta xataa waxay joojin jireen kutubtay akhri jireen kutubtii la akhri jiray kitaabku soo ma aha wax khayr laga helayo culamada badh baa kutubta joojin jirtay imaamu maalik iyo waxaa la sheegaa xataa xadiidka uu dayn jiray xadiidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhriskiisuu dayn jiray qur-aanku buu bixi jiray waa odhan jiray bishana waa bisha qur-aankay odhan jireen dabeetana cilmiga kale o dhan meel bay iska dhigi jireen cilmiga qur-aanku unbaa bay soo reebi jireen idan meesha raggii ragga ahaa uu kutubta cilmiga intuu ka tago uu xagga qur-aanka usii guurayey ama wardiga usii guurayey haddaad adiguna xagga sheekada usii guurto iyo internetka waa mid subxaanalay soo baxaysaa marka ictikaafkeenu uma ekaanayo ictikaafkii raggaa hore ay ictikaafi jireen haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu dhimanayey 20 baab uu ictikaafay baa la yidhaahdaa 20 imaamu zuhri baa laga sheegaa عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله نبي كما تجين بيرسو مدينة ويمي إنه معتكف في هاي إذا طبعا كان هبين إن هذا اعتكافته أو ورديده أو قرآن أخرده أو صلاة كتيد أو هبين يمالين بمساجد كتشوكتيد أيها هبو waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat اlqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam 10ka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi اlcashri اlawaakhir waltamisuuha fi kuli watrin buu nebigu haddana fi kuli witrin war 10ka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam habeenada witirka ah habeenada witirkaa ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban caaisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibnu maaja iyo tirmidiba warinayaan sheekh albanani saxiixayee sheegay wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam quulii allahuma inaka cafuwun kariimun tuxibu اlcafwa facfu cana waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu اlcafwa facfu cana ilaahayow mid wax cafiye baa tahay ee i cafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow i cafi dheh idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi baryada ilaahay badi waa habeenkuu nebigu leeyahy fiihi laylat khayr min أlfi shahri man xurima khayruha faqad xurim xadiidka axmed iyo nasaa-i ba warinayaan sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamaya waa habeen 1000 bilood ka khayr badan sida qur-aankuba sheegay de oo man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu yihi habeenkaa ninka khayrkeeda waayaa habeenkaa khayrkiisa ninka waayaa kaasi khayrba waa khayr beele khayr beelayaasha si aanad ugu biirin habeenkan raadcee bal 1000 bilood cibaadadood ha dambaysee haddii aada shaqaalo tahay oo lagu yidhaahdo 10 maalmood maalin ka mida haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baa lagu siinaya maxaad samayn lahayd haddaba wax weyn oo kaleba lama sheegin waan shaqaalaad ahayd miskiin oo $1,000 $500 $700 wax qaata dabeetana waxaa lagu yidhi 10kana casho maalin baa ku jirta haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baad qaadanaysaa 1000 bilood mushaharkood waa imisa dee waa pension baad gelaysaa cimrigaaga inta ka hadhay waa 83 iyo dheeraad 83 sano iyo dheeraad weeyaan haddiiba ay shaqadu markaa ku xidhantay mushaharka gebigiisuba haddaad 10kaa casho maalin ka dhex raadisid haddaad si fiican u shaqayso benshanka aad qaadanayso oo fadhiga lacagta ku imanayso bal ka warran markay janno tahay haddaba waxaa la helayaa iyo acmaasha iyo khayrka la helayaa markay tahay jannooyin ka warran sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow
war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi inaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati اlqadri leylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wax ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood waa 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrka aada shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliya u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgeliyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socda oo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi maxamed leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu nebigu yihi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaanan واxtisaabana dembigiisa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka leylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa la yihi gufira lahu ma taqadama min denbi idan ayuha اlaxiba waa habeenkaasi qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee 10kan la sameeyay ay culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaaةu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jiray oo la daraasayn jiray sanadkii u dambeeyeyna 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay culammadii muslimiinta ahaydee ka dambeysayna waa ku dadaali jireen inay qur-aanka akhriskiisa badiyaan kow dee wax lagu wardiyey horta qur-aanka waxyaaba ugu fadli badan ah oo waa kii xadiidka nebigu ku tilmaamayay qur-aanka xaraf xaraf baa loo tirinayaa maxay akhriskiisa alif ba ta tha alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin saasaa lagugu tirinaya 140 ay faatixadu ka koobantahe xaraf macnaheedu waxa weeyaan 1,000 iyo dhowr boqol oo ajaraad yeelanaysa markaad faatixada qura akhrido idan qur-aanku wax lagu wardiyo buu u fadli badan yahay aakhirana wuu shafeecaya walidalik ayaa salafkii
ummadda tani waxay xoog ugu dadaali jireen inay qur-aanka in badan dhameeyaan bisha ramadaan. waxaa laga sheegaa alaswad ibnu yaziid inuu musxafka markiisa caadiga ah 6dii habeenba mar dhammayn jiray, ramadaan hadday soo gashana 3dii habeenba mar buu dhammayn jiray bay yidhaahdaan. haddii 10ka dambe soo galana habeen kasta mar buu dhammayn jiray. yacni waktiga caadiga ah subxii qur-aanka buu ku dhammayn jiray, ramadaanna 3dii habeenba mar buu dhammayn jiray, 10ka habeenee dambena habeenkiiba mar buu dhammayn jiray. imaamu shaafici isaga waxaanad malaynayn baa laga sheegi jiray 60 khatmo buu akhriyi jiray bay yidhaahdaan. imaamu madhabkan shaaficiyada soomaalidu haysataa 60 khatmo ayuu ramadaanta akhriyi jiray bay yidhahdeen. 60 goor buu dhammayn jiray. dadminis habeen iyo maalin kasta 2 jeer 60 khatmuu dhammayn jiray. waa maxay? waa wax hayru caadiya. oo haddaas oo kii xadiidku soo arooray nahyiga uu nebigu u diiday cabdillaahi bn camr ibn caas 3 wax ka badan. alxaafid ibnu xajar, alxaafid ibnu rajab oo iswaafajinaya wuxuu leeyahay ana الnahya can qira'aةi الqur'ani fi aqali min 3 inama huwa calى اlwajhi اlmuctaad. 3 habeen ka yar inaan qur-aanka lagu dhammaynin waa wejiga muctaadka ah. ama fi اlamaakin اlfaadila kamaka liman dakhalaha aw fi اlawqaati اlfaadila kashahri ramadaana wاlcashra minhu falaa yukrahu wacalayhi camalu salaf buu leeyahy. wuxuu leeyahay alxaafid ibnu rajab raxmat ullaahi calayh, qiraa'ada caadiga ee qofka muslimkii sanadkiisa caadiga akhrisanaya ma fiicna 3 ka yar inuu ku dhammeeyo. de inaad ku tadaburto oo u fiirsataa baa roob. amaa buu leeyahy kaasi waa wejiga muctaadkee haddii aad amaakinta faadilka aad tagto, maalan makoo kale aad tagto aad in yar joogayso, ama awqaadda faadilkii ay soo gasho sida bisha ramadaan oo kale ama 10ka cashe ugu dambeeyo kale, karaahiya maaha buu leeyahy inaad ka badisid oo 3 ka yar inaad ku dhammaysid. sidaasaanu ku dareeray buu leeyahy camalkii salafka saalixa. yaan idinku badinin hadalka, waa intii culammadu idiin sheegaysay un baan ina ku celiyey anigoo raba uun maadaama ay maanta 21 ahayd oo habeenba tegey, laga yaabo inay 8 un hadhay ama 9 hadday u badato, inaan idin dhiiri geliyo si aakhiradiina iyo xoogsigiina iyo camalkiina wanaagsan u derdergelisaan oo uga dheeraataanna wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaat ah. dembi isaga maba hadal hayne waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso, bal 8 habeena hadhay ama 9 habeena hadhay ragga intaynu iska dhigno raga bal raggii hore aan ka daba tagno. salafil umma iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix, taxmiid, tahliil, laa xawla walaa quwata ila billah, salliga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam, qur-aan akhris iyo wixii la mida salaad aan isku dayna inaan badinno. warkaygu galabta intaas buu ku dhan yahay. salى اllahuma calى muxamadi wعalى alih وصaxbihi waslm walxamdu lilah.